marka maanta waxaan maxay ahayd lagu guddoonsiiyay xafiiska Nairobi lacagtii aan achieve gareeyay gaariga 1,710,000 oo Kenya money ah markii loo sarifay sarifka lacagta Kenya ee company oo wax ku xisaabsada dollarna ahayd 15,000 oo dollar. alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay ayaa mahad iskale mid iyo qofkii ugu horeeyay oo xafiiska Gaarisa iyo Kenya toon ka achieve gareeyay gaari waxa igu horeeyay laba qof oo laba gabdhood aad u daayar ayaa igu horeeyay maxay ahayd ayagana achieve gareeyeen gaari 10,000 oo dollar ah markii lacag Kenya loo bedelay ahayd 1,140,000 oo Kenya ah. alxamdulillah ilaahay ayaa mahad iskale aniga ganacsigan waxaan soo bilaabay muddo dhow ayaan soo bilaabay 2020 xilligii uu korona jiray xilligaas oo shaqooyinka dhanba gabi ahaanba adduunka ay kala xidhnaayeen oo wax la shaqeynayay jirin macallimiinta ay mushaar qaadanaynin meelaha goobaha kale lagu shaqeeyo ay xidhnaayeen wax shaqo ah oo jirta iyo wax isu safrayay iyo wax isu gudbayayba ayna jirin xilligaas ayaan shaqadan soo bilaabay Gaarisa ayaan ka soo bilaabay isbedelo kale oo badan oo yaryar baan ku sameeyay waxay ahaayeen dalxiis baa achieve gareeyay 2020 oo maxaan achieve gareeyay dalxiis Turkiga ah asagana lacag ayaan ku bedeshay $1,000 sidoo kale waxaa achieve gareeyay $1,000 oo kale oo cash promotion ahayd markaan darajada 8 star soo galiyay promotion socday ayaan $1,000 iyadana ku qaatay isbuuc kasta laga bilaabo 2020 bishii 7 ilaa iyo hadda aan ku jirno 2022 bishii 11 oo maanta taariikh 8 oo lacagta lagu wareejinayo intaasna 4 isbuuc lacag ayaan ka qaadanay company-ga 4 isbuuc waxaa sii dheer lacag kale oo bil ah oo bil kasta markay dhamaato 8 star darajada la yiraahdo marka qofka soo gala la qaato aan maxay ahayd aan soo qaato taasna way jirtaa wax kale oo qaata lacag kale oo global share la yiraahdo 3 bilood mar aan sanadkii ka qaato adduunka dhan faa'iido wadaag isbedelaha aan ka sameeyay company-ga intaas oo kaliya kuma eka waxaa jirta dad ka badan 1,000 qof maanta noloshooda ku tiirsan tahay reer Gaaris ah aniga i hoos yimaadaan fursadan aniga aan gaarsiiyay insha Allah taala waxa kale oo rajeenaya waxyaabo kale oo badan teamkayga hadda qofka achiever ah ka soo baxay laba qof oo ka achiever ayaa Gaaris ka soo baxday labadan bilood hadda sanadka ka dhimanna waxaan rajeenayaa laba kale inaan soo saaro oo ka achiever insha Allah taala intana kuma eka gaariga kuwa kale oo badan ayaa rajeenayaa inaan qaato marka waxay tahay